waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaadhaya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood oo ay dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys labadii bishii 3aad 2023 shir ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaanu kaga warbixin doonaa dagaalkii ka bilowday magaalada Laascaanood 6dii bishii 2aad 2023 dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka dagaalkaas oo socday muddo 24 casho ah baan doonaynaa inaan warbixin ka soo saarno maanta xaaladda dagaalkaas iyo wixii khasaare ka dhashay haddii aan u soo noqdo khasaaraha uu sababay dagaalkaasi waxa weeye horta marka hore waxaan cadeynayaa oo aan mar labaad aan ku celinaynaa anagoo golaha deegaanka degmada Laascaanood intaanan u gudagelin dhibaatada uu dagaalkaasi geystay iyo khasaaraha uu geystay waxaan cadeynayaa dagaalkaas cidda u dhaxeeyo oo aan u cadeynayaa mar labaad oo aan u cadeynaynaa beesha caalamka ummadda Soomaaliyeed midowga Afrika jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo cid kasta oo bini aadan ah waxaan doonaynaa inaan u cadeyno dagaalkaas cidda u dhaxeeyo si cad inaan ugu cadeyno mar labaad annagoo ah golihii deegaanka degmada Laascaanood oo ah golo sharciyadna lagu doortay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka cid kale u dhaxeeya oo dagaalka la kulay ma jirto waxa ayaamahan ugu dambeysay aad iyo aad loogu soo celceliyay oo maamulka Soomaaliland ugu soo celceliyeen oo wasiiradu ugu soo celceliyeen oo ciidamadu ugu soo celceliyeen inay dagaalka Puntland qayb ka tahay waxaan beeninayaa inaysan dagaalkaasi Puntland qayb ka ahayn waxaan beeninayaa in dagaalkaas aysan argagixis qayb ka ahayn waxaanu beeninaynaa in dagaalka dawladda Soomaaliya federaalku aanay qayb ka ahayn dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa oo kaliya shacabka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland cid kasta arintaas aan u cadeynaynaa arintu waxa aad iyo aad maamulka Soomaaliland ugu dagaalamaya ugu celcelinaya oo caalamku u sheegaya in Puntland dagaalka qayb ka tahay nin odayo reer Burcaaba waxa la yiri xaaji hebel dambi male haddaan booyada gaariga ahaanta ka weyn u saaray aan dambi ugu soo dhuuman Puntland haddaanay Soomaaliland ku haysan shacabkii ay laysay ee garow lagu daweynayo shacabkii Laascaanood ciidamada ku laayeen ee garowna lagu daweynayo ee gacanta gargaarka ay noo fidisay bini aadanimo ee dhaawacyadii lagu daweynay garowwe haddaana inta aanay ku haysan annagu Puntland dagaalka qayb ay ka tahay ma ogin meel ay kaga jirta ma ogin meel ay ugu timi ma ogin dawladda Puntland dagaalka kuma jirto dawladda Puntland dagaalka kuma jirto cid walba saasan u cadeynaynaa argagixisana kuma jirto taa intaasan kaga baxayaa haddaan u soo noqdo dhibaatada uu dagaalkaasi geystay number 1 waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaadhaya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood oo ay dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys waxaa burburay 715 guri waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa la jaray biyihii waxaa la weeraray oo ay ciidamo xoog ku galeen xaruntii laydhka
oo ay matooradii iyo agabkii laydhkana rasaas la dhaceen shaqaalaheediina qabteen qaybna ay meesha ku laayeen ay ku dileen nin shaqaalaha ka mid ah isla goobtii goobtaas waxaa isku yaalay goobta la yiraahdo shirkadda Sol Power iyo shirkadda Somgas oo iyaduna bixisa gaastan cuntada meesha ay ninka ku dileen waa shirkadda Somgas shirkadda laydhka iyada shaqaalihiina waa qabsadeen oo weydinka arkay iyagoo moobil ka duubaya oo saxaafadda ay ku jiraan matooradii iyo agabkiina dhammaan rasaas bay la dhaceen waxa laydhku ka maqnaa magaalada Laascaanood 48 saacadood waxaa dhibaato la gaarsiiyay oo la bamgareeyay dhammaan xarumihii dawladda waxaa la bamgareeyay cisbitaalkii weynaa oo aad arkayseen iyadoo si toos loo bamgareeyay oo loo duqeeyay xaruntii kaydka dhiigga iyo xaruntii laydhka siinaysay cisbitaalka iyo xaruntii ay yaaleen dhaawacyadu emergency waxay ciidamadu bililaqaysteen oo gurteen dhammaan agabkii guryihii ay ka dagaalamayeen ay soo galeen yaalay oo iyadana aad daawanayseen iyadoo ciidamadu ay moobilada iska duubayaan oo ay soo bandhigayaan cadaymo ku filanna aanu hayno oo guri walba saaka aynu tagi karno saxaafaddu ay tagi karto waxay laayeen shacabkii safarka ahaa ee wadada marayay oo aad ka warhaysaan bas dhan oo wadada marayay inay shacabkii saarnaa rasaas ku fureen nin sheekhina uu ku dhintay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxay maxaabiis ahaan u qaateen dadkii beeralayda ahaa ee ka agdhawaa magaalada iyo dadkii reer guuraaga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa iyo maxaysatadii ka agdhaweyd magaalada oo ay leeyihiin waxaanu haysanaa maxaabiis dagaal mana ahay waa dadka noocaas ciidamada maamulka Somaliland waxay geysteen dhibaatada inta leeg magaalada waxaa ka socda 24 casho xasuuq bini'aadanimo waxaa ka socda cadowtinimo waxaa ka socda ciribtir waxaa ka socda waxaynan shaahid iyo sheeko aynan hore u maqal waxaasoo dhan waxaa mas'uuliyadeeda iska leh ciidamada Somaliland iyo cidda ay ka amar qaadanayaan ee xukunta dhibaatada inta laga ka dhacday magaalada Laascaanood baanu anagoo ah golihii deegaanka ee sharciga ah ee degmada Laascaanood aanu u cadaynaynaa ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta ay qusayso waxaan kaloo soo jeedinayaa isimada dhaqanka ee gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex inaysan arrintan daawada ka noqon ma jiro wax maanta system la yiraahdo system baa ku dagaalamaya Laascaanood oo la yiraahdo dawlad baan u daba fadhinaa ma jirto haddii system jiro de annaga hadlayna oo cadaynayna sida wuxuu jiraan oo shacabku hana doorteen laakiinse magaca Somaliland markii hore lagu soo doorto isimada dhaqanka ee beelaha gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex waxaan leeyahay dadka deegaankan idinkaga filnaan mayso arrintu dawladda ay u taala nidaamkii dawladnimo meesha uu ka baxay cid hawshan wada ama ku raaca ama ka qabta ismadana intaasaan leeyahay iyo cid culimada iyo cid kasta oo samaa jecel inta haddaan kaga gudbo dhibaatada dhacday haddaanu nahay golihii deegaanka degmada Laascaanood haddaanu nahay niman odayaal ah haddii aanu
na dhibayso dhibaatada annaga nagu dhacaysa iyo in qof bini aadan ah oo islaam oo sablaan u dhintaba waxaanu soo jeedinaynaa talo aan u aragno in lagu gaadhayo xalka rasmiga ah ee nabad lagu helayo magaalada Laascaanood. waxaanu soo jeedinaynaa in ciidamada Somaliland laga saaro guud ahaan degmada Laascaanood. tala soo jeedinteeda koowaad waxa weeye in ciidamada Somaliland guud ahaan laga saaro degmada Laascaanood lana geeyo degmada Caynaba si ay u hirgasho xabad joojintii labada dhinac isla qaateen. labo in shacabka hubaysan ee ku dhex jira magaalada gudaheeda laga saaro magaalada gudaheeda si loo soo celiyo adeegii bulshada dadkii barakacayna ay soo noqdaan. 3 in gargaar bini'aadanimo la soo gaarsiiyo dadkii dhibaatadaasi saameysay oo ku sugan guud ahaan degmada Laascaanood iyo degmada Xudun, Taleex iyo Buuhoodle. kuwii gobolada kale u barakacay sida gobolada Puntland u barakacay wixii lala qaban karo lala qabto. taladaas aanu iyadana soo jeedinaynaa. waxaanu ku soo ururinaa shirkeyga jirayd maanta warbixinta guud dhibaatadii ka dhacday degmada Laascaanood. waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay dhibaatada inta inaga afjaro. waxaan kaloo Ilaahay ka rajaynaynaa maanta mindiyada daabkeed cid baa haysa. cidda mindiyada daabkeeda haysa waa ciidamada Somaliland iyo mas'uulka ay ka amar qaadanayaan oo Muuse Biixi. haddii uu qaato maanta tallaabadaas ciidamadana ka saaro deegaanadan xabadu saasay isku taagaysaa. wasalaam.